maamulka Somaliland ayaa shaaca ka qaaday in ay diyaar u yihiin in ay wada hadal toos ah la galaan dowladda federaalka Soomaaliya kadib muddo uu wada hadalkaasi uu hakad ku jiray. wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Saad Cali Shire oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in haddii si wanaagsan loo wajaho wada hadalka ay diyaar u yihiin inay la fariistaan dowladda federaalka Soomaaliya. waa runtaa weeye wada hadal waxaanu bilownay 2012 laakiin labadii sanadood u dambeeyay hakad ayaa ku yimi inta badan ka yimi xagga Soomaaliya. anagu hadaan Somaliland nahay madaxweynaha dhowr jeer buu ku celceliyay munaasabado badan oo kaga hadlay diyaar baanu nahay wada hadalladii in dib loo bilaabo laga ambaqaado go'aan laga gaaro arrimaha masiiriga laga wada hadlo laakiin xagga Soomaaliya ayaa arrinkaas weli ka gaabinaya inkastoo runtii farmaajo dhowr jeer la weydiiyay weli soo diyaar baanu ahay haddana hadalka mooyaane weli wax bilowa weli ma jiraan. wasiirku waxa uu rajo ka muujiyay in ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Haysom oo qayb ka qaato dib u bilaabashada wada hadalka labada dhinac. laakiin waa rajaynaynaa wadamka ergeyga gaarka la soo magacaabay ee bedelay Michael Keating ninkii hore Nicholas Haysom marka waxaan rajaynaynaa insha Allah arrinka inuu dib u dirdirgeliyo oo wax ka dhaqaaqan.